shirkadda Spectrum oo ah shirkaddii saaminta ku samaysay shidaalka Soomaaliya ayaa war ka soo saartay arrinta saaminta shidaalka Soomaaliya iyo cabashada ka timid Kenya oo sababtay khilaafka soo kala dhexgalay dalalka Soomaaliya iyo Kenya. qoraal ay shirkadda Spectrum soo saartay waxay ku sheegtay in shirkii magaalada London ka dhacay 7 bishan aan lagu xaraashin xirmooyin la sameeyay ee shidaalka Soomaaliya. sidoo kale shirkaddu waxay sheegtay in dhulbadeedka saaminta lagu sameeyay ee lagu soo bandhigay shirkaas uu yahay mid ay leedahay Soomaaliya kadib markii dawladda Kenya ay sheegtay in Soomaaliya ay suuqeyn u sameysay dhul ay leedahay oo shidaal ku jiro. qoraalka shirkadda Spectrum ayaa lagu muujiyay dhulbadeedka ay shirkaddu sahanka ku sameysay iyo qayb dhuleedka ay ku muransan yihiin dalalka Soomaaliya iyo Kenya. lama oga qoraalkan in uu wax ka bedeli karo khilaafka xilligan u dhaxeeya wadamada Soomaaliya iyo Kenya kaas oo soo bilowday Sabtidii kadib markii ay Kenya u yeertay safiirkeedii joogay Soomaaliya sidoo kalena safiirkii Soomaaliya ee dalkaasi ay ku amreen in uu dalkiisa u laabto. Salmaan Ogo, magaalada Boosaaso.